السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا معلي شريف فيديو قام وحكو سابسين هاي سكستين أو dhibaato laga dhaxlay teknolojiyada waa arrin weyn oo saameyn weyn ku leh caruurta meel kasta ay ka joogaan adduunka iyo dadka waaweynba. Waa maxay sexting? Ma aaminsan tahay khatar inay tahay qaadista iyo dirista masawiro qaawni ah? Maxaa qalad ah oo ku jira? Maxaad ku waan leedahay caruurtaada haddii mid kamid ah uu sameynayo? Waa maxay sexting? Sexting waa qaadista, dirista iyo helitaanka masawiro qaawni ah adiga iska qaad ama qof kale ka qaade. daairta maanta jirta waxay la soo koreen internetka, noloshoodu dhanna way isticmaalayeen. waxay la wadaagaan asxaabtooda masawiro, aflaanta ay fiirsadaan iyo riwaayadaha. waxay kaloo isku diraan fariimo halka ay iska wici lahaayeen. marmarka qaarkood dhalinyaradu way fududaystaan waxa ay u dirayaan asxaabtooda iyo waxa kale ee ay la wadaagayaan bulshada kale ee internetka. fududaysigaas waxay saameyn ku yeelataa noloshooda inta ka dhiman. daairta qaarkood diritaanka masawir ay qaawan yihiin waxay u arkaan wax caadi iska ah oo qaladba uma arkaan. markii ay weydiisana waxay kugu jawaabayaan asxaabteedoo dhan ayaa sameysa. qaar kalena waxay u arkaan kaftan, halka kuwa kale cadaadis lagu saaray inay diraan masawirada caynkaasa. 25% caruurta waxaa loo soo diray masawiro qaawni ah, fariimo iyo emailo ka hadlaya galmo. inta badan da'yartan ma garanayaan dhibka ka soo gaari kara iyo in ay dambi ku gali karaan. markii loo soo diro masawiro qaawni ah, iyaga waxay la sii wadaagaan masawiradaas asxaabtooda kale ee internetka. Snapchat iyo Kik waxay isku xayeysiiyaan in masawirada la geliyo 10 ilbiriqsi ka bacdi ay baxayaan. arrinkaas oo been ah. labada kambaniba way qirteen inaysan masawir kasta oo la geliyo uusan baxayn. sidoo kale qofka masawirka qaawnida loo diro screenshot ayuu ka samaysan karaa, sidoo kalena wuxuu la wadaagi karaa asxaabtiisa kale. waxaa la isticmaali karaa software lagu soo celinayo masawiradaas oo masawiradu bixin maayaan haddaad tirta xitaa. 88% masawiradan waxay u dambeeyaan in qof kasta uu ka heli karo internetka. 3 cawaaqib ayaa ka ratibmaya qaadista, dirista iyo helitaanka masawirada qaawnida ah ee caruurta: emotional consequences, social consequences iyo legal consequences. Emotional consequences waxaa ka mid ah inuu dareemo rajabeel maadaama aysan jirin wax uu ka qaban karo lana wadaagi karin waalidkii dhalay. in masawiradaas lagu bulli gareeyo, lagu handado, laguna hanjabo. Social consequences inuu saaxiibadiis la coloobo maadaama ay bixiyeen sirtiisa, iyo inuu ka go'o dhammaan la sheekaysiga bulshada kale iyo midda familkiisaba. waddankan waa sharci darro qaadista, dirista iyo helitaanka masawiro qaawni ah oo laga qaaday caruur ka yar 18 sano. qofkan wuxuu ku muteysan karaa dambi lagu xiri karo. haddii cunugaaga kombiyuutarkiisa ama telefoonkiisa uu ku haysto masawir qaawni ah oo loo soo diray ama mid uu asaga u qaaday, wuxuu galay dambi waana lagu xiri karaa. sidoo kale haddii uu la wadaago masawirada caynkaasa asxaabtiisa, wuxuu galay dambi waana lagu xiri karaa. sidoo kale hadduu ku save gareeyo kombiyuutarkiisa ama telefoonkiisa, iyaduna waa dambi. dacwada ayaa lagu soo oogayaa, waa la maxkamadeynayaa, waana la xirayaa. waxaa la gelinayaa liiska dadka caruurta farxumeeya. waalidkana waa la baarayaa. haddii lagu helo in ay ogaayeen cunugooda inuu sexting sameynaya, ayagana waa la xirayaa. caruurtoo dhanna waa lala wareegayaa. dadka dambiyadan lagu helo looma ogolaanayo inay ka agdhawaadaan meel caruur joogto, iska badaa inay ka shaqeeyaan meel caruur joogtee. calaamadaha aad ku garan karto cunugaaga inay saameysay sexting waxaa ka mid ah in cunugaaga uu ka fogaado asxaabtiisa iyo bulshada oo dhan, in uu guriga isku soo xiro, in uu diido inuu iskoolka aado ama uu banaanka u baxo sabab la'aan, inuu markasta walaacsan yahay, uu niyad jabsan yahay, in uu ooyo sabab la'aan, inuu cidihiisa ka qariino, inuu timaha iska rifo, iyo inuu dareemo inuusan nolosha u qalmin. calaamadahan waxaad ku garanaysaa inay cunugaaga sexting saameysay iyo in kale. waalid ahaan maxaad samayn kartaa? kala hadal cunugaaga masawirada xun. marmarka qaar eeg masawirada uu qaaday ama masawirada loo soo diray. ha u qaadan weligaa inaysan caruurtaada iyo saaxiibadoodba aysan ka suuroobin arrintan. ugu dambeyn, cunugaaga bar diinteenu waxay ka qabto asturnaanta, dadista cawrada iyo muhiimadda ay leedahay. fadlan subscribe dheh si aad u hesho video kasta oo aan soo gelino.
waqti kastana aad la socoto isbeddelka waxbarashada ee carruurtaada iyo qaababka aad ku caawin karto. waa mahadsantahay.